in si lamid ah aan recordka noo duubo si ay dad kale uga faa'iidaystaan. Okay, waxaan ku bilaabi doonaa awalan guud ahaan lacagaha dollarka, kadib waxaan dul istaagi doonaa gold dadkii trade gareeya gold traders inshallah ayagana fursadooda iyo usbuucan fursadaha aan trade ka qaadanay ayadana si lamid ah waan dul istaagi doonaa. Marka waxay u dulqaadataa inta aan analyskii ka dhammaysan doono then wixii su'aal ah oo ku saabsan cashirka mise chatka ka timaada waan isla dul istaagi doonaa. Awalan istaraatiijiyadda conceptiga aan mar walba xogta aan ka qaadano waa SMC. Haddii aad istaraatiijiyad kala isticmaashid hope sidaa wax u wadno inaan la fahmi doontid. DXY-da waa lacagaha ugu badan aan waqtigeyga siiyo aragti ahaan iyo fikir ahaan markaan rabo inaan lacagahan kala trade gareeyo. Okay, waxaa xasuustaan isbuuco dhexdaas ah inaan ka dhawaajinay DXY inay ku fashilantay inay jebiso hayahaygii hore halka yaalay. Si lamid ahna waxaan ka dhawaajinay haddaa xasuustaan lifekii isku kiin dambeysay kan inuu yahay correctionkan markaan 15 minute ula deganay si lamid ahna waxaan ka dhawaajinay inaan u baahannahay in shift lagu sameeyo. oo calaamadahan aad u jeedid oo calaamadihii ugu dambeysay aan ku analyze garaynay suuqa filashada aan ka leenahay. si lamid ah shiftigu uu noo sameeyey isla isbuucii lasoo dhaafay khamiistii fursado entry ah oo GBP/USD ilaa aan Euro USD aan ku trade garaynay oo scenario 1 ah ayaa halkan yaalay haddii aad xasuusataan aan idinla soo sheegareeyay live-ka. So marka sidaa awgeed entrygan scenario 1 lacagta dollarka sell halkaasaan ka qaadanay maadaama aan analyze garaynay xogta guud aan la soconay ahayd in fursadaha aan sidaa u ilaalino. Dadkii ka wareeyay oo live markay joogaan go'aankooda ahayd inay sidayta uga faa'iidaystaan. I hope inay ka faa'iidaystaan fursadahaasi ay noo bixisay lacagtan la yiraahdo USD. I think DXY jihada ahaan aragti aan waxaan ka qabno. Then still filashadeeda waxaan qabaa ani ahaan ilaa iyo zoonka hoose in la sii aadi karo. Haddii ay noqotana in gaabkan halkaa yaalo weekend ugu furmay in la buuxina ay noqoto waa arkayna laakiin aragti guud DXY waxaan ka qabaa fikir trend ah in 1 hour-keeda uu ahaan doono mid sell ah. I hope new low ahayna in low ka lagu dari doono inkastoo hadda aanan weli aanan la jebinin new low halkan noo yaalay still lama taaban. So sidaa awgeed taasi waa lacagta DXY waxaan ka qabo. Euro haddaa usoo laabatid jih ahaan filashadaan ka qabna ayadana waa inay buy noqoto laakiin ayada direction sax ah oo markaa aan kaga xaqiiqsan karno jiha ahaan suuqa ma hayno. Kaliya haddii 1 hour-ka aad joogtid levelkii ugu dambeeyay 1 hour-ka low high-giisii halkaasuu yaalo baa si fiican u fiirisid low high-gaagii kaasuu ahaa. Then tani waxay noqonaysaa break of structure-dii taas waxay noqonaysaa BOS tani waxay noo noqon kartaa BOS then si lamid ah kani waa u dambeeyay lowgeeni then tan waxay noqonaysaa inducement. So dadka badna halkaani waxay ku qalda inay low tahay laakiin in badan SMC concept marka casharada qaadanaynay waxaa in badan ka dhawaajiyay last bullish candle haddii ku dhex jiraan meesha correction ma noqonayso haddaa xasuusataan. So from here lowhaan laga soo bilaabo ilaa halkaani waa hal impulsive oo low ah. So lowhaagii waxaa moodaa in weli aan la jibin no Euro USD jihi ahaan 1 hour-keeda sell ayay leedahay. That's why ay kaga duwan tahay marka DXY-da laakiin waxaan filayaa maalmaha nagu soo aada filashadeeda ani ahaan in lowhaagan la sii jibin doono haddii sida DXY aan rabno ay noqoto. Haddii DXY hadee new lows ay low samayn weyso fursadaas weli official maaha. Sidaa awgeed Eurodana sell way sii ahaan doontaa. Fikirka waa in halkaa ka qaadataa. Haddii marka lowhaagan la jibiyo trendiga jihadiis buy noo noqon doonta anigoo focuskeena siin doono inuu jihada after si ahaato halkan ay noo noqon doonto wax la yiraahdo accumulation phase oo in badan range market halka ay ku gashay for the last week hataa trade fiican lagama qaadan Euro USD
سنة حسوسته أسبوعي ugu horeeya qurux badneed laakiin isbuuci la soo dhaafay wax fursad ah maysan bixin هو جي بي اس إذا كاركتر دونيت وأنا كستراكشر قرux badneed أيضا haddaad xasuusataan waxaan kaga dhawaajinay change of charactergii inuu halkaa yaalo saa xasuusataan kan uu noo yahay correction lifefkii ugu dambeeyey aan kaga dhawaajiyey kan hadduu new yahay noo yahay ishaarta aragtida ah waxaan qabaa inuu suuq samayn doono hayga oo sii socon doono waatiin way dhacday correctionkan fursad qurux badan uu bixiyey jiyo haddaa xasuustaan intrida dhanka member chatka haddaad joogtaan then liquiditygaaga iyo shuruud walbo entry aan ku qaadan kartay waa tii aan soo sheegareeyey aan discordka fursadda aan soo dhigay so fursaddani horta jiyo last week ay bixisay oo wayna ka yar dooneed markii loo fiiriyo euro usd wayna ka trade qurux badneed then si lamid ah another entry kale aan filaya inay bixin doonto maysan bixinin waxay iska gashay xaalad range ah oo in badan halkaas ka dul wareega waxaana soo dhaweeyey fursad yar oo halka ku jirto oo jimci ahayd jimco galab oo aan u niistay inuu ahaa kanna correction kale isla mid ah oo mar labaad noo soo laabtay isla asagana halka wuxuu ku jiray liquidity kale halka ku sameeyey isla correctionkii ah so anytime smc concept aad trade garaysid way qurux badan tahay inaad mar walbo shuruudahaada waxay ku amraan samaysid kaasi liquidity kan ka soo celi soo kan oo ahaa liquidity manipulationka maba ka fogeyn isla markii waa kan hoosta kaga jiray sida halkaas ay noo ahayd then manipulationkii isla waxaa la jibiyey isla markaa daqiiqadaas within 5 minutes haddaa u dhigatidna confirmationka markaas arki kartaa inkastoo 15 minutes aad joogay isla markaasaa la jibiyey so then liquiditygaagana obvious tan ay ahayd then shiftiga kaasuu ku ahaa isla daqiiqadaasi then entry kaloo isagana ilaa haygiisa lagu tagay ilaa kan uu ahaa I think soddon iyo dhowr bii uu ahaa mana xumeyn okay so marka galab jimaaca haddana tradekii mar labadu soo laabtay then weekenda la gaaray saaka tradeka halkaas waa ka furmay asia session I think sydney session then ilaa hadda waartii jihadiis ay bay u socoto marka fursad kale oo aan GU aan ka arkay maanta ma jirto ilaa asbuucii hore ay labadaa fursad bixisay then trendiga obviously u socday levelka noogu soo sokeey oo in badan sarka laga soo bushgareeyey haddana waxaan qabaa dib aan rabin inaan trade gareyno let's wait suuq ilaa uu kaga soo laabto zoonkii ugu dambeeyey uu hadda bay ka aaday kadib correctionkan soo laaban doono shuruudahaadii ka raaso dan fursadaadii weli jahabay ah sida u trade gareyn si clean ah oo waxba ku duwanayn adig on suuqa qasin inta ugu badan fursad uu ku siin doonaa waxaa xiga USD card oo aydan in badan haddaa la socotaan fursad badan aan ka qaadanay last week si limit trade ayna siisay haddaa xasuusataan si wada jir ah oo aan u wada joognay mar ayaa waxaa jirto live trade halka aan ka qaadanay oo ayna iri targetkayga weli lama gaarin in badan ay waqti igu qaadatay waa lacagta kale structurekeeda aan si fiican ula socdo oo hay loogeeda shuruud walba igu dhisan isbuuci soo dhaafay ay hal trade baa ka qaatay halkaa trade-na successful uu noqday oo dhib ma jirin GU laba trade ahayd last week ayadana TB ahayd bay qurux badneed CAD JPY iyo USD JPY waa tii aan idin yiri mandaydi isbuucii lasoo dhaafay dadkii live-ka joogay inaanaba trade gareenbo sababtoo ah wax jiha cad ah oo CAD JPY ama USD JPY lagu trade gareen karo meesha ma yaalaan ilaa haddana fikirkaasaan qabaa wax jiha ah oo lacagaha labadan lacag lagu trade gareyn kara meesha ma yaalaan ana waxaan qabaa marka inaad ka gaabsatid ilaa iyo amra dambe maybe bil kale ha ahaato ilaa ay un jiha cad ka yeeshaan sida normally caadi ahaan ahaan jireen aad ku trade gareysaan even USD JPY waxay soo halawday April hadda already waxaa dhammaanaysa May iska daa April xataa jiha cad ma lahayn USD JPY so that's why marka waan ka gaabsaday labadan lacagood maba trade gareeyo si hadda kor haddaa xasuusataan life hore oo 2024 I hope 2025 inay ahayd aan Eurocard iyo GBP card aan lista uga saarnay haddaa xasuusataan life-kii hore aan joogi jiray sababta waxaa jirto lacaga sometimes volumekooda bilo laba bil iskaga xumaado oo jiha cad ba lahayn jihadana haddii aad ka trade garaysan isla markii stop loss ay kaaga dhacayso waa shuruudahaadii conceptgaagii aan waxba ku shaqaynayn so sidaa awgeed lacagaha ku shaqeeya waqti la siiya USD CHF more clean trade u ahaa haddaa xasuusataan isbuucii lasoo dhaafay
waxaan ka qaadanay ayadana trade qurux badan si limid ah ayada laakiin wax isbedelaa ku yimid waxaana moodaa DXY inay la jaha noqotay so coacha halkaa ka dhacay isbedel change of character then waxaan sugnaa waxaa waaye in one more time supply zoneka uu suuqa kusoo laabto kadibna correctionkan supply zoneka aadayo inaan shuruudaha ka dhisno anigoo filashadeen ay tahay inaan suuqaas lagu trade gareeyo very clear so USDCHF-na sidoo kale intaasaan ka qaba aragti ahaan waa USD card kale ugu soo laabatay gold iyo xaalkiisa dadkii gold traders ah kolley asagana jiha cad ma lahan I think Saka wuxuu ku furmay halkani Asia sessionkii almost ku dhawaad 700 biibu kor aaday that's too much haddaa xasuusataanna entry aan jimcihi halkan ka qaadanaa jiro oo 15 minute trendy aan la trade garanaynay kaniguu noo ahaa correctionkii then entry-geen uu ka ahaa 15 minute haddaa u degatid always goal haddaa rabtid inaad goal fiican ka gaartid conceptiga SMC waa waxba kama duwano sida GU iyo Euro USD u trade garaysan baa loo trade garaya laakiin asiga wuxuu kaga fikir duwan yahay aana ka dhawaajiyey waa in 15 minute jihadiis aa og tahay iyo nidaam ahaan qaabkay u been guurayso then hadda waxaan haynaa 15 minute-kii haddaa xasuustaan new high lama sameynaa idin dhihi jiray ugu dambeyn waa la sameeyey then jiha guud waxaan haysanaa 15 minute high ah even xataa Saka trade ayaa ka qaadanay inkastoo ay ahayd 150 bib then kan wuxuu ahaa correctionkii la rabay inuu soo laabto entry-gaaga markaa ula degtid 5 minute-ka dadka gold trade gareeya entry-gaaga 5 minute markaa ula degtid liquidity-gaaga muxuu ahaanaa liquidity-gaaga kanuu noqonaya you see so kaasi hadduu liquidity kuu noqdo manipulation-kaaga kuu xiga concept-ga aad ku trade garayso SMC unbaa lagu trade gareeya then kan wuxuu noqonayaa shiftigii suuqa kuu sameeyey then entry-gaaga scenario qurux badan ilaa hadda live trade oo entry ah ku dhawaad 200 oo bib dhaqaaqay ayuu halkan ka dhaqaaqay I think waxay ahayd 7 saac 7 saac ama 8 saac ahayd fursaddan live-ka way jirtay oo aan rabay inaan idinla soo wadaago concept-ga laakiin why aanan usoo dhigaynin qaab signal ah why aanan trade ku dhehaynin buy or sell because aniga xaaladaada iyo concept entry-ga meeshaad ka taagan tahay iyo fikirka guud trade-ka aad ka haysata ma garan karo ilaa aan aniga maybe aan group ugu daray oo sidaa aad trade-ada u wada qaadano anigoo og xogtaada iyo kalsoonida aqooneed aad suuqa ku leedahay maadaama aan xogtaada hayo sidaa awgeed gold ayaa trade life noo ahaa I think haddana trade-yada wuxuu ku jiraa as leeyahay ilaa galabta nagu soo aadan one more time ilaa haygaas TP-ga wuu kusiin karaa sida hadda as leeyahay waana ku dhawaad ilaa iyo 200 bib 190 bib 190 bib that's amazing dadka trade gareeya ku caajisan Euro USD GU ma trade gareeya leh goldana concept-gaaga waa sida wax fikir uu kaga duwan yahay markii loo fiiriyo inkastoo asaga 1 hour-ka u baahneen inaad waqti dheer siisid ka badan kaliya inaad ku ekaatid 15 minute iyo 5 minute adigoo trade gareynayo liquidity iyo manipulation-kaaga sida isku raacaan concept-ga guud inaad xooga saartid so kulley live-keena halkaas ayaan ugu talagalay inaan kaga baxo iyo analyze guud ah berina halkaasaan kasii wadi doonaa si lamid ahna caawa 3 saac bar kalaaskii basic ah uu noo bilaabanaya from beginning ilaa to end oo expert ah waxaan kasoo gali doonaa YouTube-ka iyo dhanka TikTok labada meelba kaliya waxaan ka bilaabi doonaa from zero to end ilaa iyo qofka uu yiraahdo xogta good forex waan heeyaan okay so sida awgeedna way sidaan ugu sameynayna kaliya inaan dadka fahamsiino suuqan inuu yahay xirfad qofka hadduu barto kaliya u baahan inuu naftiisa diyaariyo so naftaada inaad diyaarisid unbaa howl kaaga badan laakiin suuqan waa xirfad haddaa baratid kaaga badan waxyaabo badan ee kaa daboola sida awgeed caawi 3 saac bar iyo from zero to end inaan koorsadan wadno ilaa iyo 6 June si lamid ahna concept-ga entry model-ka haddaa xasuusataan istiraatiijiyadda meesha ugu badan laga barta ma ahan dee forex chart-ka high low wax ugu badan flexibility aad dadka ugu badan yihiin waxaa waaye qaybta la yiraahdo entry model-ka sida isku raaco 5 minute iyo 15 minute-ka isla mid ahna trade management iyo risk management qof inuu fahmo qof waxaa arkaysaa trade ka faa'iidaya midna ku khasaaraya waa same entry aan kon midna ku faa'iidaya midna ku khasaaraya
so what's the cost cost maxaa sababi karo waa in qofka la fahansiiya management trade-ka sida loo xakameeyo so sida awgeed asagana 5 June ayuu noo bilaabanaa so 5 June haddii advance aad tahay keli un ay xoogo culaysyadaada ay yihiin entry modelka sida u dhamaystiraa xogta guud oo trade management sidaan ku helaa ani ahaan experience inta uu leeyahay waxaan bilaabi doonaa coursaas 5 June si qurux badan marka aan kan soo dhamay sababtoo labada class